waana aaminsanahay maalintii lagu wareejiyey meeshii loogu dhiibay inay hore uga sii qaadeen sida ka muuqata warbixinta mashaariicda qabsoontay iyo kuwa hadda socdaba waxaan annaguna ballan qaadaynaa haddii ilaahay idmo inaan meeshaas ka sii qaadno oo meel ka sii durugsan geyno sida dabeecadda caadiga ah dawladdu waa qori isku dhiib maalin walba qofka jooga meel buu ugu imaan meelna waa gaarsiin waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muddada 5 sano ah ay xilka u hayeen ummadda Puntland wax badan oo lagu xuso oo waaweyn ayay qabteen waxaana aniga oo ka mid ah shacabka reer Puntland magacoodana ku hadli kara madaxweynaha u rajaynaynaa in wixii gafe ka dhacay ilaahay ka cafiyo sida uu shacabka reer Puntland uga codsadana ay u cafiyaan waa muwaadin Soomaaliyeed oo xilal badan dalka ka soo qabtay waa asad dadka reer Puntland leeyihiin horena ugu baahnaayeen hadan ugu baahnaan doonaan waxaan rajaynayaa inaan si dhow u wada shaqayn doono madaxdii hore khibradooda iyo waaya aragnimadooda ay la garab istaagi doonaan dawladda cusub wixii tala ah aan uga baahanana siday noo ballan qaadeen aan ka heli doono annaguna waxaan cadaynaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland inaan si dhow ula shaqayn doono waxa aanan ka codsanaynaa wada shaqayn dhinacooda inaan ka helno waa xil adag waa mas'uuliyad weyn oo dareenkeeda leh laakiin waa mas'uuliyadna sugaysay oo meel looga baxsado aan lahayn ummadeen inaan shaqaynaan halka u nimid waana rajaynaynaa inaan mas'uuliyadaas ka soo baxno wixii nagu adkaadana aan u wada joogno madaxweynaha waxaan kala wareegay si rasmi ah dhammaan dokumentiyadii iyo qoraalladii ee dawladdu ay ku shaqaynaysay kuwa la ogaa iyo kuwa qarsoon intaba xog maanta Puntland ay leedahay oo annaga naga qarsoon ma jirto si rasmi noogu wareejiyay annagana waxaan rajaynaynaa wixii sir dawladeedna inaan xafdino wixii mashaariic aan hore u sii wadno wixii aan u aragnay in aan wax ka bedelno si ay u qurux badnaato maamulka Puntland aan ku soo siyaadino dhammaan bulshada reer Puntland waxaan ugu baaqayaa inay midnimada ka shaqeeyaan wada jirka ka shaqeeyaan dawladda shacabka iyo annagoo dhanba dawladda garab istaago wax wanaagsan oo aan ku faano in aan ka shaqeyno ayaan rajaynaynaa ilaahay idankiis madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana waxaan u rajaynaynaa caafimaad iyo nolol wanaagsan iyo in ay noqdaan dad sharaf iyo karaamo kula agtayada waana runtii ballan bay naga tahay in aan maamuuska ay mudan yihiin mar walba ay naga helaan wada shaqayntuna xilalku in la kala wareejiyay weeye lama kala guurin marka waan rajaynayaa in dawladnimada Puntland ee gaamurtay la arko miraheeda dhabta ah oo Puntland oo nabad ah oo dadka xilka markay ka degaan si nabad ugu noolaadaan waxaan rajaynaynaa in dadka reer Puntland ay dalka ku joogaan oo maqnaanshaha dalka annagu joogistiina uma arkayno culays annaga nasaaraysan waxaan u aragnaa wanaag iyo odayaal aan la tashan karno dalka jooga meelaha qaarkood culays baa laga dareemi jiray laakiin annagu culays uma arkayno inay madaxdii hore nala joogto taladoodan u baahannahay maxaa yeelay waa muwaadiniin khibrad siyaasadeed iyo mid maamul lahaa waxa annagu aan ka shaqaynaynaa waa wixii ummaddu lahayd waxaan annagu leenahay kama shaqaysanayno aad baad u mahadsantihiin waana iniga mahadcelinaynaa wakhtiga dhammaan golihii wasiirada hore iyo shaqaalaha dawladda waxaan kaloo sidoo kale rabaa inaan amro dhammaan oo faraya ciidamada kala duwan ee Puntland in ay ilaaliyaan kala dambeynta iyo nabadgelyada goobahooda ku sugnaadaan heegan u galaan sidii amniga aan khalkhal loo gelin lahayn maadaama Puntland cadow badan leedahay waxaan sidoo kale maanta rabaa inaan halka cadeeyo ilaahay idankiis markaan dib u fiirino oo waxa ka khaldan wax ka bedelno dhinaca maaliyadda mushaharooyinka ciidanka iyo shaqaaluhu waa ahmiyadda koowaad waa kharashka ugu horeeya ee ka bixi doona khasnada dawladda hadii ilaahay idmo mushaharooyinku waxaan ballan qaadaynaa in ay sidooda u baxaan oo wax walba aan ka hormarino annagoo og inuu culaysyo nabadgelyo iyo kuwa dagaal ay haystaan laakiin haddana waxaan ku dadaali doonaa inaan bixinno dhammaan xuquuqda dawladda lagu yeelanayo waxaan kaloo bulshada reer Puntland ka codsanayaa in canshuurta dawladda la bixiyo si adeega dawladda looga baahan yahay ay u fuliso dhammaan waxaan rajaynayaa canshuuraha dawladda inay siday tahay u soo xaroodaan waxaan farayaa
saraakiisha canshuuraha inay labanlaabaan ururinta canshuuraha. waxaan kaloo halka ka caddaynaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo cid kasta oo ku xadgudubta qaanuunka iyo shuruucda u taalla dalka hadday noqoto mid maaliyadeed iyo mid maamulba tallaabo degdegaan ka qaadi doonnaa haddii ilaahay idmo. cid aan uga haybaysan doonno ilaalinta sharciga ma jiri doono. qof walboo u diyaargarow wixii sharcigu uu qabo, qofka wixii sharcigu uu qabo ayaan ku wada dhaqmi doonnaa haddii ilaahay idmo. waana arki doontaan maalmaha soo socda wax kasta oo qallooc ku ah ama dulqaadkii uu madaxweynaha soo sameeyey. runtii markaan sheekaysannay dulqaadkiisii wuxuu isu beddelay eedayn. ma raba taasoo kale inay ugu dhacdo. dulqaadkii uu inii sameeyey oo eedaynta isku beddeshay inay annagana haleesho ma rabno. waxaan rabnaa wixii sharcigu uu qaba inaan ku camalfali doono, qof walbana waxa uu mudan yahay uu heli doono. aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.